سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا وعن خلق رفيع لا يضاهى وعن من يرتجي فيه الثوابا بطولات تسطر كيف كانوا أسودا يعتلوا الصرح المهابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybta afraad ee barnaamijka halgankii daraawiishta. من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل. qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo xukun dil ah lagu fuliyey nin la yiraahdo Firin Qodax markii uu diiday in sharciga islaamka lagu kala saaro isaga iyo nin kale oo ay wax ka dhaxeeyeen taa beddelkeedana uu doortay maxkamadda gumaystaha. isla bilowgii dhaqdhaqaaqa daraawiishta ayaan ku jirnaaye abbaaraha bishii Oktoobar ee 1899 ayaa daraawiishtii talo ku gaartay mar haddaynu damacsannahay inaynu diinta noolayno gumaystaha ku jihaadno dad iyo dunyana urursanno waxaa lagama maarmaan ah inaynu garab iyo gaashaanba ka helno degmooyinka galbeedka Togdheer, Burco, Oodweyne iyo dadka intii ka dhaxaysa degan. dabadeedna hub iyo faras wixii markaa la heli karo inta la urursaday ayaa waxaa la guddoonsaday in galbeedka shir loogu baxo. sidaasna waxaa looga jeeday laba hal. waa midda koobaade in gumaystaha la cabsi geliyo oo dhaqdhaqaaq la sameeyo, iyo aadane waa indha kumyara in israacooda iyo wadajirkoodu dadka degmooyinka galbeedka degan soo jiitaan. baryahaasna waxaa daraawiishta dhexdeeda laga faafiyey warar been ah oo dadka lagu shakigelinayo oo ahaa in ninkii aan iyaga raacin inuu yahay gaal. waana sida ay maanta yiraahdaan wadaadaha shisheeyaha taabacsan iyaga oo ku suurad xumeynaya mujaahidiinta. si arrintaasi loo beeniyo darteed ayaa rag 5,000 oo nin lagu qiyaasay sayid maxamedna hor socda ay galbeed u ambabaxeen. dabadeedna colkii waxa uu tegay Beer, Burco iyo Oodweyne. wuxuu dareemay mooye markii Beer la marayay ayaa Garaad Cali, Garaad Maxamuud dib u noqday. dadkii arlada deganaa dhiirlo ayaa gashay oo waxay moodeen in iyaga lagu soo duulay. hase ahaatee waxaa lagu yidhi waxaanu ku jihaadeynaa gaalada iyo dadka raacsan, annagu muslimiin duulaan kuma nihin, waayo waaba kuwa aan difaacayno ee aanu doonayno inaan gumaystaha ka dulqaadno. Douglas Jardine oo ahaa qoraa xogayna uu ahaa madaxdii gumaystaha Ingiriiska ayaa waxa uu qoray waxaa baryaha la faafiyey in wadaadku berbero gubayo mishinkiina baabi'in doono. dabadeedna cabsi darteed ayaa hindigii maalqabeenka ahaa magaaladii ka qaxeen oo cadan u dhoofeen. dhowla tuskaasi natiijadii laga rabay ayaa ka soo baxday oo waxa uu farax geliyey dadkii muslimiinta ahaa, waxaana uu caro iyo naxdin ku beeray gumaystayaashii. markii ay da'day dayrtii xigtay gugii la soo dhaafay ayaa daraawiishtii xagga bari u sii guurtay. warkoodiina aad buu dalka ugu baahay, dadkiina waa u riyaaqay. geedigaasna waxaa ugu wacnaa laba hal. waa midda koobaade sayid maxamed oo doonayay in uu reer abtigii dhex tago si uu garab, gaashaan iyo gargaarba uga helo, iyo raggii la socday oo jiitay. talabaad ololaha daraawiishta oo dadka bariga degan lagu fidiyo laguna faafiyo. dabadeedna waxay tageen Dhuuglim, Widwid iyo hareerihiisa. dadkiina waa uu batay. kadibna waxaa la gartay 3 hal. waa midda koobaade in la abuuro niman magacyadooda la yiraahdo qusuusi oo had iyo jeer sayidka la taliya. 2 in la sooco gaarhaye oo xarunta gudaheeda iyo sayidkaba ilaaliya. qodobka 3aad waxa uu ahaa qofkii la garan waayo ama loo maleeyo inuu daraawiishta ka meel yahay ama doonaya inuu ishortaago, bal marka hore la waaniyo oo lala taliyo. hadduu se taladaas iyo waanadaasi qaadan waayo laga tashado.
haddaba daraawiishtu waxba uma yaraysan soo dumidda dadka iyo diyaargarowga noocyadiisa iyadoo diinta islaamku ay ka warrantay muhiimadda arrintan waa kan sheekh cali dayaar. ahamiyadda uu leeyahay isticdaadku waa ahamiyad aad iyo aad u ballaadhan, meeshana kuma soo koobi karno, marka saa daraaddeed nuqaad yaryar ayaan ka soo qaadan doonaa. waa waajib farducayn ah ayay maanta isticdaadku yahay. qof kasta oo muslina waxaa looga baahan yahay ahamiyadda inuu dareemo uu maanta isticdaad galo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waacidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum waaaakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illahi yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun. nabiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii muslim wuxuu yidhi alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu. quwadu waa toogtaasoo dhinac walbaba gelaysa, oo madaafiicda goobta gelaysa, istishhaadiyada gelaysa, xabadii iyo talaqaadkii la ridaya noqonaysa, qorigii gaadhiga laga ridaya noqonaysa, dhammaan marka waa ramyiga weeyaan. marka qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu arrintaa u degdego, waa cibaado. ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walow araaduu alkhuruuja la acadduu lahu cuddah walaakin kariha allaahu bicaasahum fahabbatahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin. haddii ay doonayaan kuwa munaafiqiintu inay baxaan way diyaargaroobi lahaayeen, laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala aya nacay. fahabbatahum ilaahay wuu nabay oo arladii ayuu ku nabay oo wuu reebay. waqiila qcuduu maca alqaacidiin, fadhiga kuwa qaacidiinta macooda ee fadhiya een jihaadka gelaynin, caruurta iyo dumarka iyo odayaasha gaboobay iyo kuwa ilaahay u cudur daaray subxaanahu wa tacaala, kuwaa macooda fadhiya baa la yidhi. maanta marka fadhi meesha ma yaallo. dadka muslimiintu marka inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan, inay iskaalmaystaan yaa loo baahan yahay walaalayaal. waxaa loo maleegtami jihaad milaygii joogaaye musliin iyo kufraan loo xarbiyi labada meeloode murtad weeye gaalada ninkaan moosinka u tegin. muddo kadib daraawiishi waa ay ka guurtay dhulkii ciid iyo nugaal, waxayna u guurtay dhanka galbeedka soomaaliya ama dhulka soomaali galbeed. wuxuu degay meesha la yidhahdo guraati, waa reer cabdille dhexdiisa ama maxamed subayr dhexdiisa weeye guraati dhul ah. halkaa ayuu xaruntii ka samaystay. rag badan baa ugu yimi, hub badan buu helay, fardo badan buu helay, xoolo badan buu helay. si fiican iyo si fiican baa loo dhaqaaleeyey. daraawiish waxaa horkacay cabdi maxamed waal oo ahaa nin karmeed la yaqaan, kaasoo si wanaagsan u taageeray. dabadeedna waxaa sayidku uu dhankiisa u dhisay walaashiis oo la odhan jiray tooxyar sheekh cabdulle. si maamuus iyo xarago leh ayaa loo soo dhoweeyey, looguna soo shiray. markii sayidku u warramay ujeeddadiisii iyo waxa uu damacsan yahayna sheegay, aad baa loogu riyaaqay. waxaa aad loola sii dhacay markuu degmooyin badan oo colaadi ka dhexaysay heshiis dhex dhigay, dadkiina wanaag iyo walaaltinimo loogu baaqay. itixaada oo waa tii aad sidii ari ahaydeene, aqoonna yeesha waa jaahilnimo waxaydun eedeene, is-aqbala qabiilnimada waad ku ambanaysaane, is-adeeca uurxumadu waa aayatinli'iye. midowgii iyo walaaltinimadii dadka la dhex dhigay waxay u horseeday horumar, tan oo ku tusaysa sida ay mar walbaahi muhiim u tahay in qabaa'ilka muslimiintiihi walaaloobaan kana gudbaan kala qoqobka. wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلهي سبحانه وتعالى آيات وحي إنه شيئا ضدك مسلمين تأهوا إلهي سبحانه وتعالى حرقيس قبصدا وأمر لنا أمر يو إلهي حرقيس إنا قبصنا إنه أردن walaa tafaraquu hana kala tegina. oo kala tagaasi waxa weeyaan waa in la kala tago, laysu duburjeediyo, laysdilo, laysnaco. xusuusta buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay nicmadaydii aan idiin nimceeyey idinka oo cadow isu ah oo isdilaya oo quluubtiina aan isu soo dumay. fa asbaxtum binicmatii ikhwaana,
marka waxaad noqoteen nicmadaydii baad walaala ku noqoteen wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar waxaanad ahaateen god qarqarkii godkaas oo naar ah ood ku daadan rabteen oo sidaa haddaad ku dhiman lahaydeen ilaahay subxaana wa tacaala naar baad ku daadan lahaydeen uun ilaahay diinta iyo waxyiga iyo ciziga iyo sharafta uun idiin soo dejinin kadalika yubayinu allaahu lakum aayaatihi lacalakum tahtaduun ilaahay subxaana wa tacaala saasuu idinku caddaynaya aayadihiisa marka saa daraaddeed inaan in badan ku baraarugsanaano ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa aan mar walba raacno yaa naftayda iyo naftiinna u dardaarmaya markuu haradigeed tegay sayidku waxa uu soo saaray xukun ku saabsan nabadgelyada dadka waxaana uu ku dadaalay inuu nabad dhex dhigo oo wixii xaq isku lahaa kala siiyo taa waxaa marag u ah geeraar uu markaa mariyey xuseen dhaqle waxaana uu yidhi niman baa cagaciidiyo camuudoo ka horaysay iyo cabaydhii gacandhiile ciilkoodii la buka oo ku cadgoosan xaraashka ee inaan cawsna ku tuurin sayidii waa nagu ceebe ceenkee baan tashannaa muddo gaaban dabadeed ayaa sayidku dadkii dhulka degganaa isugu yeedhay oo waxa uu weydiistay in jihaad loo guntado diinta iyo dadkeedana loo hiiliyo dab iyo faras wixii la haystana daraawiishta loogu deeqo maadaama hadafku yahay in gumaysiga la iska dulqaado taasna dadkii waa u riyaaqay oo waxay la noqotay wanaag iyo samafal allah loogu dhowaanayo mathalu alladhiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili llahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم waxaa jirtay in 300 oo xabashi ah galbeedka ka soo duuleen oo webi Shabeelle hoos u soo raaceen iyaga oo doonayay inay dadka reer guuraaga ah xoolo sad ah ka gurtaan gaar ahaan mustaxiil iyo dhul badan oo ku xeeran dabadeedna dagaal baa dhex maray Soomaalidii xoololeyda ahayd iyo colkii xabashida ahaa markaas xabashidii waxaa laga furtay 72 qori sayid maxamedna wuxuu maqashiisnaa in dabkaasi la hayo ujeedadiisuna waxay ahayd inuu helo si uu ku helaba shiddo badan kalama kulmin dabkaasi helidiisii muddo dhowr toddobaad ka yar ayaana loogu keenay 72 qori iyo rasaastoodii iyo 100 fardo ah taasna waxay sayidka u kordhisay kalsooni iyo niyad sami أسري فيك للغاية waxa uu sidoo kale xiriir fiican la yeeshay qabaa'ilka Soomaaliyeed ee reer Jabuuti qaarkood si uu taageero iyo hubba uga helo maadaama ay degganaayeen xeebaha galbeed ee koonfurta jasiiradda Carabta markii uu sayidku ku xasilay dhulka Soomaali galbeed isla markaana xaqiijiyay kalsooni badan oo dhanka ammaanka ah iyo inuu saldhigan karo ayaa waxa uu dib u habeen ku sameeyay ciidamadii daraawiishta isagoo u kala qaybiyay guutooyin iyo majmuucaad kala gedisan guuto kasta waxay ka koobnayd dhammaan qaybaha qabaa'ilka Soomaalida waxaana loo sameeyay hogaamiyaal karti leh si guuto la arkaaba ay awood ugu yeelato inay dhaqaaqdo goorta munaasabka ah sayidkuna waxa uu noqday hogaamiyaha guud ee arrimaha kala haga looguna soo laabto talo iyo go'aanka kama dambaysta ah guutada qudheeda waxa uu sayidku u qaybiyay 2 ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo markii hore laga soo xulay xertiisii halka qaybta labaad ay ka koobnayd dadka dib ka soo raacay halganka jihaadka waxaana intaasi dheer in sayidku uu sameeyay astaamo iyo eray bixinno ay isku afgartaan ciidamada iyo saraakiisha sida ay sheegaan dadka ka hadla arrimaha ciidanka iyo militariga howlaha ugu adag ee hogaamiyaha soo wajaha waxaa ka mid ah inuu kala xusho askartiisa qof walbaahina uu ku aadiyo halka uu munaasabka ku yahay ha yeeshe ee sayidka allah ayaa u yasiray arrintaasi
marka laga soo tago arrimaha ciidamada iyo habeentooda waxa uu sayidku maamul islaami ah u bedelay guddiyadii iyo maxkamadihii uu halkan ku dhisay waxaana uu maamulkan ka dhigay mid awood u leh in uu ummadda ku dhaqo shareecada islaamka waxaana la magacaabay qaadiga khilaafaadka iyo murannada soo kala dhex gala dadka iyo kuwo kale oo qaabilsan arrimaha guurka sakawaadka furiinka iyo kuwo kale. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. dhanka waxbarashada waxa uu magacaabay rag macallimiin ah oo carruurta iyo dadka waaweynba bara diinta islaamka. halkan waxaa ka soo baxday quwad islaami ah oo dhinacna ugu adeegaysa bulshada dhanna la dagaalamaysa gumaystaha sida maantaba ka jirta wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab. sayidku markii ay wax badan isugu tooseen uuna soo dhowaaday waqtigii fooda la gelin lahaa gumaystaha ayaa waxa uu qalcado waaweyn ka dhistay goobihii uu ku sugnaa ee baadiyaha. si la mid ah waxa uu dhowr meel oo kala duwan ka qoday ceelal si ay uga faa'iidaystaan ragga jabhadaynaya iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah. kumiintida xarbiga waa qabnaa munyo iyo ciile muramaysta tirirtiisa waad mahadin doontaane mudku geliya maaraha kufrigu waydin moog yahay. markii uu ka dhammaaday diyaargarowga uuna qiimeeyey xaaladda ciidamadiisa ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal jihaad ah. bayaankiisii ku dhawaaqistana waxa uu ahaa mid uu si xeel dheer u diyaariyey. bayaan waxa uu ahaa murti xambaarsan oo uu kula hadlay gumaystaha ciidamada mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah. waxyaabihii uu aadka u taabtay waxaa ka mid ahaa dadka shisheeye kalkaalka ah kuwaasoo iyaga oo hawshaasi ku jira haddana isku qancinaya inay muslimiin yihiin. digniin ayuu bixiyey si aanan hadhow loo odhan ma aanan ogayn in la beegsanayo qofkii gumaystaha la shaqeeya amaba aanan loo odhan qof muslim ah ayaa la dilay. waxaana uu cod dheer ku sheegay qofkii gumaystaha waddanka ku soo duulay ee kiristanka faafinaya la shaqeeya uu yahay qof gaal ah. digniintaasi kadib waxa uu ciidamadii daraawiishta ku amray inay dilaan cid walba oo gumaystaha kaalmo siisa noocay doontaba, ha noqoto inay waddooyinka tusaan amaba dagaal kala soo galaan. nin aqdaamo faranjiya maantiyo abuuriin ama aaladaba u sida ama awrtaba u rara ama arigaba u qala ama laba ugaarsada ama uba ilaalo ah ama uurka kala jira ashahaado been iyo islaamnimo ha lagu dhaqo ilaahayna nama odhan annama oggolaan karo. waa erayadii sayidka. ha yeeshe ee sharcan muxuu yahay xukunka ciddii la safata ama gacan siisaa shisheeyaha? waxaan su-aashaasi hor dhignay sheekh mahad abu cabdiraxmaan. sayidku wuxuu ahaa nin sheekh ah. axkaamta wax ku dhisanayna dabcan waxay ku salaysnayd fahamka uu ka haystay shareecada islaamka. sharciguna wuu caddeeyey qofkii gaalada raaca ee muslimiinta uga soo hiiliya xukunka uu yeelanayo. qofka muslimka ee gaalada soo raaca muslimiintana kaga hiiliya xukunkiisu waa gaalnimo, waa riddo. arrintaasna waa midda keenaysa qofkaas inuu diinta ka baxo, dhiiggiisuna uu sidaas ku bannaanaado. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum fainahu minhum
alle subxaanahu watacaala ayaddaas qur-aanka wuxuu ku caddeeyey qofkii gaalada safkeeda u wareega sawaadkooda badiya oo hiil yahoo la garab istaaga inuu ayaga ka mid yahay, ayaga ka tirsan yahay oo iyaga lagu xisaabinhayo. fa innahu minhum, isbeddel baa yimid oo waxa waaye midabkiisa iyo jinsigiisa la fiirin mahaye xaggee qofku ka tirsan yahay, safkee ku jiraa weeyaan. waxaa sidoo kale arrintaas runtii aada iyo aada u caddaynaysa rasuulka ayaa nin u yimid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. markaasuu wuxuu ku yiri rasuul ilaahay mata saaca. rasuulku su-aal buu kusoo celiyey, wuxuu ku yidhi maxaad u diyaarsatay saacaddan aad i weydiinayso? ninkii wuxuu ku yidhi waxweyn ma aanan diyaarsan, laakiin innii uxibu allaha wa rasuulah, hayeeshee anigii ilaahay rasuulkiisa baan jeclahay. rasuulku marka qaacida uu bixiye uu leeyahay almar-u maca man axabba, qofku sidiisaba wuxuu la jiraa oo bahwadaag la yahay qofka uu jecel yahay. waxaa intaa kasii waadixsan dad muslimiin ah xilligii nabiga sal allau aleyh wasalam yaa waxay soo raaceen gaalada iyadoo ay qayb leedahay waana la soo khasbay. cumuuman marka sawaadkii gaaladay soo badiyeen, dagaalkiibay soo galeen. muslimiintii gaalada la socotay qaarna waa la dilay, qaarna waa lasoo qafaashay. cabaas baa kamid a dadki lasoo qafaashay. waxaa dhacday marka in dad muslimiintii kamid ii xaraj oo galay oo dhaheen war meeshii dad muslimiin aan ku laynay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo dejiyay aayad qur-aan uu leeyahay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha. dadkaasi iddicaagii iyo waxa ay sheegteen waa lagu buriyey. waxay dhaheen maarata mustadcafiin baan ahaynoo waa naloo xoog sheegtay oo saasaan safka kusoo galnay. awalam takun ardullaahi waasica baa lagu yiri, war dhulka ilaahay soo ma ballaaraynoo waasic mausan ahayn oo ma isaga tagtaan meesha? hadalkoodii marka maxaa lagu soo gabagabeeyey fa ulaaika maawaahum jahannam wasaacad masiira, masiirkoodii meeshay ku dambeyn doonaan baa la sheegay. arrintaasna cabaas ibni cabdilmutalib way ku dabaqantayoo rasuulku sal alla alay wasalam dadka lasoo qabtay wuu ku jiray. rasuulku sidii gaalada ula mucaamilay iyo ula mucaamilay cabaas waa laysoo khasbay xaggii sidan ka idmaan fidaa laga qaatay way. marka arrintaasi waxay caddaynaysaa waa qaacido guud weeyaan, sawaadka hadduu qofku badiyo qolada uu sawaadkooda badiyay yuu ka mid yahay wey. lidaalika waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum, ninkii ummad isu ekaysiiya iska doondoona dhaqankooda iyo socodkooda iyo isyeelyoolkooda dhan sida ay yihiinba iska dhiga, ayaguu ka tirsan yahay, iyaguu ku mid yahay. waxaad garanaysaan waqtiyada kamid a saxaabadu inay duulaan u kaceen. nin acmaa oo indhoola ah ayaa damcay inuu muslimiintii raaco. markaasay waxay ku dhaheen warniim adiga ilaahay baa kuu cudurdaaray, waadan dhabeesha iska joog. wuxuu ugu jawaabay war anigu nimaya wax kale haddaan waayo sawaadkaan badinayaa, mataacana muslimiintu waa u ilaalinayaa, safka ha laygu daro. halkaa marka maxaa ka muuqda yacni cid walbaaba meesha ay sawaadkeeda buuxiso inay ma garanaysa waxa weeyaan loo xisaabinayo. marka ninkii hiil gaalo noqda oo gaalada safkeeda ama jacayl ha u qabo, waxay u baahan yihiin ha u qabto, safkooda ha biiriyo, ayaga maaragtay ha ka dhaqan dhigto, waxa iyagu sheegayaan ha ku qanco, waxa weeyaan safkaasuu raacahaya. marka gabayga uu sayidku tiriyena arrintaas ayaa laga fahmayaa. سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا وعن خلق رفيع لا يضاهى وعن من يرتجي فيه الثوابا بطولات تسطر كيف كانوا أسودا يعتلوا الصرح المهابا. dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta afraad ee barnaamijka halgankii daraawiishta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا على وجه الثرى أرسوا أساسا يعانق من معاليه السحابا ليبقى للمدى ومضات ماجد من التاريخ قد بلغ النصابا ليبقى للمدى ومضات ماجد من التاريخ قد بلغ النصابا.